waxyaalaha aynu ku ceeboonayno waxaa ka mid ah intaanu adduunka tagno oo meelaha oo dawlado u tagno waxaalan xagga ka socota wallaahi reer hebel oo la yidhaahdo reer qasax oo reer qurac reer qasax reer qurac maxay yihiin ma naqaan reer qasax reer qurac soomaaliya ka mid xaaba soomaaliya dhadhete hana dhihi reer qasax iyo reer qurac ma naqaane markaasaad rabtaa sharaf inaad yeelato sharafu ku yeelaysa sidaas sharafu ku yeelaysa gobol sharaf kuma yeelaysa qabiil sharaf kuma yeelaysa waa hal adduunka hal ku loo yaqaano waa soomaaliya waa soomaaliya inta kale adduunka halkaagan dhulkaageena dhulkageliya dhiga dhulka dhiga dhiga waxa kaloo meelaha ku wadataan dhiga dhulka dhiga ma dhigteen dhulka soomaaliya keliya iyo soomaalinimo mashaakilka muu shaqaynaysaa waxa kale haddaba iska daay iska daay yaanan idin arag berrito idinka oo qol yar inta idin geliyo inta adduunka ballaaran lagaa soo saaranayo soomaalinimada qol yar inta lagu kaagu dhigaa innagu haddaynu nahay qoladeenna reer hebel baa lagu kacsan yahay khayrkoodii baa la cunaya adduunkoodii baa la cunaya gobolkoodii baa la leeyeelaya qabiilkoodii baa la leeyeelaya tallaay waa inaynu kacna war waa mid kugu aw kacsanaya oo mar waxba aan ku filnayn waxba aan ahayn wuxuu yahay aanan jirin adiga aan kaa fakerihin dhallinyaroy waxaan idiin sheegaya ma qaadata inaad soomaalinimo keliya u shaqaysataan iyo shaqanimo mase qabiil ku noqotay soomaalinimo adoo kala sharaf waa yeelanaysaa dawladna waa yeelanaysaa dawladii waxay dawlad ku noqotaa dadkeeday dawlad ku noqotaa dadka aan fiicnayn dawlad fiican ma helaan dadka aan dawladnimo rabin dawladnimo ma helaan dadka aan qarannimo rabin oo jeclayn qarannimo ma helaan madaxweyneyaal fiicanna ma helaan arrintaas runteeda ogaan haddaad rabtaa dawladnimo waxay ku timaadaa walaalaya dhegaysta dhalinyarda dhegaysta yaa la idiin sheekaynin wallaahi runtaan idiin sheeg runta ilaahay baa jecel wixii raba hala yidhaah ana laa yuman dad baa oranay barhadda hadda waxbaada reer hebel buu u xaqlinayaa haa kaana nunqalisi ku hadlaya wuxuu ka hadlayo waxaasoo maalayac waa maalayacni wey dhegaysta waxaan idiin sheegaa tajribadayda fiiri dhalinyaro baasaboorkii u horreeyey waxaan qaatay aniga oo 16 sano jira waan ka yaraa muddada baasaboorka lagu ogolaynayay soomaaliya baasaboorka soomaaligu wuxuu ahaa baboor aad iyo aad qaali u ahaa adduunka qaali ugu ah dawladnimadu ku ahaa wax kale qabiil kuma ahayn gobolna kuma ahayn dawladnimadana innagoo dhan baa wada leh qabiil gaari ma laha oo qof gaari ma laha oo gobol gaari ma laha dawladnimada innagoo dhan baa leh laakiin qofka markaa administrationka ama xukunka ama xukuumadda ama cabinetka markaa fadhiya waa isbedelayaan anigu waxaan la soo noolaa cali cabdullaahi cismaan allah u naxariista meesha royaro aan dabaaldegno laakiin aan diinteenna ilaalin rag iyo dumar yar iyo weyn gabdhuhu xushmadda iyo xijaab wiilashu dhalinyarada anshaxa iyo islaamnimada diinta aynu masalayno waa cinwaanka aynu muslimiinta u nahay kaas aynu ilaalino meel kastoo aynu joognan aynu ilaalino xafladaheenna farxaddeenna dabaaldegeenna islaamkii diinka